intii aan soo joognay dadka ugu badan oo aan dalka ka bixin baan ahaa ama ka agdhowaa meesha la joogana hadda u jeeda dalkan wuxuu u baahan yahay in si dhab ah loo galo xaqiiqada la iska dhaafo danaha shakhsiga ah iyo damaca qofka laakiin la aado marxaladda xaqiiqiga ah oo isbeddel dhaba lagu sameeyo aniga hadda 4 sano dhow baan ka maqnaa intii aan muqdisho joogay wax isbeddel oo aan arkay ma leh wadada hadda aan soo maray waan dheyndeynayay wax ku kordhay ma leh bulshadu sidii bay u cabsanaysaa dalku sidii buu weli u burbursan yahay dowladnimadu sidii bay isaga daba wareegaysaa marka intaas anigu waxaan qabaa inay nagu filan tahay maxaa yeelay raad arooriyo dib looma raacaa la yidhi wixii shalay khaldanaa khaladad badan baa dhacay khaladaadkaas haddii aan ku noqnoqonno hore uma soconayn anigu waxaan qabaa khaladaadkan inaan iska gudubno dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ay ugu horeeyaan siyaasiyiinta ugu horeeyaan baarlamaanka Soomaaliyeed heer federaal xubnaha ku jira iyo dawladaha xubnaha ka ah madaxdooda iyo baarlamaanadooda waxaan ani aaminsanahay in ay waqti geliyaan marxaladda aan ka jirno si wada jira inaan uga baxno aragtida kala qaybsan waxaa la rabaa inaan god intaan la gelin qol mugdi ah aan la oran waa la iskhilaafsan yahay fagaarayaasha intii la lis yimaado la garnaqsado wixii halkaa lagu heshiiyana halkaa looga gudbo baarlamaankan halka waa doodaan xeerar baa isku khilaaftaan cod baa loo qaadaa cid ka daba hadasha ma leh anu waxaan qabaa arrimaha masiiriga ee siyaasiga ah gogol intaan ka ballaaran ha loo dhigo qof walbana doodiisa ha dhiibto dalka waxa danta ugu jirta ayaa qofkii kaleetana danta ugu jiraysa hadduu markaa xataa dan u arkaynin dantaasaa asal ah dowlad dhiska inaan marxaladiisa qiimeynaa asal ah wadajirka inaan qiimeynaa asal ah inaan isu dulqaadanaa asal ah aad baan inaga mahad celinayaa kulankan iyo fursaddan ay siiseen inaan halka hadal ka soo jeediyo